kuwa badan baa lagu fiirinaya caafimaadkayga intaan ku helina. waa 25 jir 3 jeer guursatay iyada oo qabta xanuuno aysan u qarin kuwii guursaday balse dayacay markii ay la guri galeen kadib. ladan maxamuud axmed ilinta ayaa ka qubanaysa mana faraxsana. waxa ay ku nooshahay magaalada Qardho oo ka tirsan dhulka uu ka taliyo maamulka Puntland. hooyadeed way geeriyootay, aabaheedna waa da' qudhiisu waxa uu ku xanuunsanayaa Hargeysa oo Somaliland xarun u ah. kaligeed ayuu awlaad ka dhalay. ladan iyadoo aan qangaarin ayaa si qasab ah nin loogu guuriyey maadaama aysan gaarin lahaynna garaadkii guri dhaqidda iyo in wax laga dayo toona. isfaham waagii halkaas ka dhashay ayaa bilow u noqday nolol mugdi ah oo xitaa gaarsiisay in jirkeeda dhaawacyo loo geysto. waa sida ay ii sheegtay. xanuunada ay qabto oo sababay in 3 jeer lasoo furo oo ninkii guursadana uu ka cararo iyo daryeelka hadda ay uga baahan tahay Soomaalida adigu aad ku jirto ayay inooga sheekaynaysaa. ka raalli ahaada haddii ilinta ka qubanaysa ay beddesho dareenkiina. Soomaaliyeed oo in badan weligeed aan hor fadhiisan kaamiro, laakiin maanta danta iyo duruufta jirta awgood khasabtay inay soo fadhiisato. in badanna baahiyaheeda qarsanaysa, qalbigeeda ku qarsanaysay. qofka waxaa muhiim ah inuu jirka ka qorsanaado, inuu qalbigiisa ka qorsanaado. qof walba wuxuu dhami karaa baahida jirta wuxuu soo fadhiisto kaamiro. aniga waxaan ahay gabadh sanadkiisa laakiin aniga xasuusta hooyada alla iga qaaday, aabahay isaga xanuunsan dhulku nooya Somalilandkaas keligeed awlaad iga dhalay. saarin aniga maanta intuu adduunya ma jiro ama wax taraya markaan xanuunsan tahay ama miyeysanta ama bantahay waxa keliya kala wadaagta dhibkaaga waa qofkaa dhammaanaya ama jirkaaga. runtii in qalbiga jirka laga quruxsanaado wax wanaagsan in qalbiga lagu quruxsan yahay. aniga maanta waxaa la noolaa sokor, waxaa la noolaa dhiikar, waxaa la noolaa neerfa. waxaan ahay qofta keliya maalin 3 saacada ilaa ilaahay intuu qoray maahan. alxamdulilah weliba waan ku samaysanahay waxaanka ilaahay ii keena ilaahay caafimaad iima waayo. wallahi ilaahay caafimaad iima waayo, laakiin kuwa badan baa lagu fiirinaya caafimaadkayga intaan ku helina. waxaan iga codsanaya 3 kuul baan soomay noloshayda. mid walba waxa u bandhigay xaalad aan ku jiro, mid walba ii soo dhaweeyey intuusa ii guursan waa igu idhaaheen. laakiin maalinta noloshayda gudaha u galay waxay igu noqotay noloshayda caqabad. markaan sugayay farxad, markaan sugayay garab istaag 12 sano noloshayda kamid maalinta 12 sano ilaa iyo maanta noloshayda farxad ma arag. faqrada madaxayga ku yaala waxa ay geystay oo jirkii oo xarnaa maanta aan dhacay geystay saamikay ka mid. alxamdulilah ilaahay baa ii qoray. ilaahay wuxuu ii qoray inay ani karto, wuxuu ilaahay ii qoray inay ma siin karto. laakiin galabta halka waxa u soo fadhiista aniga og inay dhahay gabadha yartaa wey, in la dhahay wejigeeda saas wey, weji quruxda lahaa ma taro. wallahi ma socdo taro inta iga daasa maanta ina qalbigay ka daasa. waxaa laga yaabaa kuwa iga lamida aniga inay habeenkii farxad ku socda aniguna ilmo ku socdo. waayo maanta kala bedelab adduun wey boonti wan aankinin ku gato maayo. sukar baa la nool, dhiikar baa la nool, neerfal ee kaayaga saas uga qaadanaya midbid la soo soo dhacaya. xabad baa gacanta iga dhacday, halka xabad baa iga dhacday, halkaas laga soo saara. jirkayga saas u noqon wada barbaraha madow bararkaas way jirkayga u noqon. alxamdulilah oo ku qanacsana ilaahay uu farsi intii ugu madacnani bin aadan aan waxba ima tarka laakiin maanta ma shaqaysan karo. xoolaan ku shaqaysanaysto qofka duruufaysan baa xoolaan haysto melihi qofna qof xanuunsan ma rabo. qof walba oo bin aadan oo dunida ku nool wuxuu rabaa qof caafimaad qaba. ilaahay rabbi subxaana watacaala bin aadanka dhulka ka siga laakiin dareenkayga qalbigu ilahay ku kala gudyo. maanta waxay walaashii Soomaaliyeed ilaahay dhanna Soomaali naga wada dhigay muslim baana. ilaahay baa inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum. ilaahay baa yidhi fain taabuu waaqaamuu salaata wa aatuu zakaata fa ikhwaanukum fi ddiin. ma ahan walaalkan kula dhashay ee waa ka soomkii salaada iyo sadaqada alla ku walaalka ah. maanta waxaan walaaliy waa ka mid ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muhammadan rasuulullah. waxaan iga codsanaya ilaahay dartii fi wajhi illah qabiil iga codsanaya Soomaali nimo ilaahay dartii waxaan iga codsanaya maanta inaan garab walaalnimo ii fiirisa maadaama tawakkul allah lagu jiro oo khayrka badnaa in ilaahay rabbi subxaana qof walba wuxuu taxsan leeyahay. qof walba dunida uu ka tagay iyadoo buuxda oo sax u buuxda
maanta awlaad ma haysto aan ku indho kusho xanuunkaasa qof walba iga reebay maanta gabadhii waa shay adsay jirta laakiin maanta qof walba isu hadla taagaya quruxdeeda markuu arko laakiin qof dareemi kara qalbigayga ma jiro waxaa ku jira marka insha allah qof walba ilaahay oo qulubtiisa qof walba qalbigiisa ilaahay wuxuu ku jiraa u rumeeyo ani marka waxaa rabaa inaan walaaltinimo si walaaltinimada murugada ay la qaybsataan maadaama aan ah qof dhiikar iyo sunkar la nool oo stress aan u baahnay haddana stresska aan la noolahay waxaan iga rabaa garab waxaan iga rabaa walaalnimo waxaan iga rabaa islaamnimo inaad ilaahay darto wax iigu qabataan biwajhillah waayo maanta waxa ay qabataana u baahan idinkuna birka maalin daahilisan idinka u baahan qof walba maanta wuxuu taxsado unbaa meel u yaala waayo dunidadaa ayaamo iska kooban oo ayaama macduudaad qofna uusan adduunkan uusan ku waarin haddii qofku ku waaray nabi maxamed baa lagu innaka mayitun wa innahum mayitun dareen marka waxaad dareenta maanta dhowr walaashaaya oo ilmaynaysa oo adduunka kugula nool oo magaca soomaalinimo iyo islaamnimo kugula wadata ya maanta waa garanaya dad badan waxay dhahaya nabi maxamed waa soo baratay social media laakiin dhibaatada ma dareemi karaan anigu baa dareemi kara anigu baa dareemi kara waxaa dakhal wajigaya ku yaala waa kadibin dabiikabashada igu sii igu gaystay maanta awood ima sheegan karo uma sheegan karo wayga awood badan marka bilasxaan ilaahay darti waxaa dhakhtar ku tago iigeeya dhakhtar meel iigeeya intaas dad islaama mucaawinaada oo muxsiniinaad si dhexda islaamkaas xula baxa aniga intaas aniga cusbanay bifadla qofna qof qalbigiisa kama tutimi karo markaa dhaawacanta oo markaas duugaysantahay dunida dhan baa markaad duugaysanta waa kuwa keliga laakiin marka aad qoslayso qof walba uu kula qoslaya wuxuu kula dhool cadaynaya laakiin ma jiro dhaqanka marka oyni qofkan oyni maanta ma soomo ma awoodi karo sokorteeda way dhacaysaa waxaa iskaga bixiya ma awoodo gabadha ala noolahay maaha qofaan ehelnimo kula nool ilaahay dartii waa ula nool galaaskiya maanta ma awoodi karo marka walaalayaal bifa ilaahay dartii wax kale inagama rabo maanta wallahi wax badan baa dhib oran jira hala caawiy anaa warayaasha uu geyn jiray tviyada anaa dhibkay qarsanaya laakiin waa qarsan waaya xaqiiqatan marka ilaahay dartii biwajhillaah waxa igu qabta biwajhillaah idinku aniga mar iga raadinay qabiil igu raadinay soomaalinimo ilaahay dartii maanta waxaan iga rabay shaaladisan jazaaka allah ladan maxamuud oo ilintu ka qubanayso waxa ay bulshada Soomaaliyeed kaga baahan tahay caawin degdeg ah si nolosheeda ay farxad u hesho maadaama ay noo sheegtay in sidii ay u qaan gaartay aysan helin wax farxad ah